waxa ay dileen ninkeedii weliba si arxan darro ah iyadoo ay ku abuureen nacayb iyo ololkaasina waxa uu gubay shacab dhan. waa amiiradii argoosiga ee Olga. amiiradan asalkeedu yahay Ukrainiyada waxa guursaday amiirkii Kiev ee Ego. waxa kulmiyay xidhiidh naxariis iyo jacayl aad u daran. amiirkan ayaa waxa uu tali jiray reer la dhaho reer Dalifaar. reerkaas oo ay kula heshiiyeen inuu isaguna ilaaliyo iyaguna ay sanad walba siiyaan lacag. haddaba sanadu markay ahayd 945 ayaa boqorkii go'aan waxa uu ku gaadhay inuu ku kordhiyo lacagtan isagoo uu qaaday damac. dabadeedna waxa ay go'aan ku gaadheen dadkii in ay boqorkan afduubaan kadibna dilaan. halkaas ayayna ku dileen. reerkan ayaa waxay ahaayeen reer aad u weyn kana kooban amiiro iyo xukaamo waaweyn leh. markii ay dileen waxay u dileen si arxan darro ah waxayna ku xidheen geed isaga oo noqday laba dhambal. haddaba dhacdadan ayaa Olga waxay ku reebtay nacayb. dabadeedna waxay noqotay keligeed maadaama inankoodii yaraa uu ahaa 3 jeer. inta uu kasoo korayana go'aan waxay ku gaadheen inay iyadu Kiev amiirad ka noqoto. reer Dalifaar oo ahaa reerkii dilay ninkeeda ayaa waxa uu damac ka galay gabadhan iyaga oo sheegay in gabadhan haddii ay guursadaan ay midoobi doonaan magaaladan la dhaho Kiev iyo reer Dalifaar magaaladoodu. dabadeedna waxa uu soo diray xakiimo iyo amiiro isagoo ka dalbaday inuu guursado si ay u guursado boqoradan Olga. dabadeedna waa ay fikirtay waxayna tiri caawa waxaad joogtaan dibadda magaalada, berrina waxaa idin imanaya ciidankayga idinku soo dhaweynaya doomihiina. sidaa ayay yeeleen. habeenkiina waxay seexdeen dibadda magaalada. arrinku markuu halkaa marayay Olga ciidankeedii waxay u diyaarisay in ay qodaan god aad u weyn isagoo ayba ogeyn inuu yahay habeenkii adduunka ugu dambeeyay. waagii markii uu bariyay waxa ay u yeedhay siday ugu ballan qaaday dadkii iyo amiiradii uu soo diray boqorku. waxa ayna aastay iyaga oo nool. dabadeedna halkaa ayay kulaysay reerka. amiirkii ayaa waxay u dirtay waraaqay leedahay waan aqbalayaa arooskaaga laakiin waxaan u samaynayaa tacsi aad u weyn. ninkaygii wixii dhacay waa dhaceene waxaad ii soo dirtaa ciidankaaga kuwooda ugu xooga weyn. waxa la sheegay inuu soo diray 5,000 oo ciidan. dabadeedna waa ay soo dhaweysay waxayna u diyaarisay suuliyo iyo dhul ay ku maydhaan. mar allaale markii ay galeen suuliyadii waxa la sheegay inay gubtay. markii ay gubtay ay halkaa ku dhammaadeen oo ay aragtay inuu reerkani soo dabargo'een waxa ay duulimaad ku qaaday boqorkii kasoo dalbaday inuu guursado. waxa la sheegay markii ay tagtay magaaladii reer Dalifaar in ay iclaamisay ama ogeysiisay in ay ku baaqday nabad ay nabadna dhexdooda dhigtay. boqoradan la yaab kale ninkeeda u arkaysay